Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan asxaabta soo dhawaada, walaalahaygan jeclahay soo dhawaada. Aad baan iga mahad celinayaa subscribe-ka sida fiican aad iigu samayseen. Dhammaantiin waxaan leeyahay waa dhiirigelinteeda subscribe-ka noo sameynaysiin. Soo dhawaada, maanta waxaan sameynayaa isteeg aan haddana aan yaryareeyey oo isteegna la ekeyn suqaarna ahayn iyo bariis cad oo vegetable leh. maasha allah asxaabi, bal soo dhawaada, inaguna ila arkasaan u sameeyey, ilana soo tijaabiya haddii waqti loo helo. maasha allah waxaan samaystay isteegiyan. Markaan isteegii soo iibsaday waan dhexdan ka kala jaray, si yaroo dhuudhuuba baan u samaystay isteegii oo aan aad u waaweyneyn, suqaarna ka waaweyn, isteegana ka yaryar. Marka waxaan ku laaqanayaa waa corner scratch-kii ayaan ku laaqanayaa. Warango bay hadaa magaceega kale, warangoodii xalaawada lagu darayey iyo soya sauce-kii ayaan ku laaqanayaa. Waxaan isku laaqayaa suqaarkii hilibkii isteegan yaryareystay, mulqaacado waranga ah iyo soya sauce-ka aad arkaysiin ayaan ku laaqayaa hilibka siduu uu isku dhex galo. Waa liidhanaantii caadiga ahayd, haddaa haysatid waad iskaga tuujisan kartaa, haddaad tan haysidna maasha allah. Liidhanaantu aad bay ugu fiican tahay, waa antibiotic fiican weeyaan. Anu kulleyba ahaan wax walon sameynaya waan iskaga darsadaa, maasha allah. Inagana sidoo kale nii rajeynaya waan u maleeyaa. Liidhanaantu aad bay u fiican tahay. Marka inta aan ku darsado haddana khal weeyaan, waa khalkii caddaa, iskagana mulqaacad baan ku daraa. Khalku dhadhan buu yeelaa cuntada, maasha allah. In yar waxbana kama dhimayo, laakiinse dhadhan yaro fiican buu yeelaa. Waa filfisheenii madoobeyd, black pepper-kii, waa filfishii, maasha allah. Marka saad iskugu wala geysid waa milixdii waxaan imika ku darayo, waan isku wala dhex gelinayaa. Cabaar intaan basasha iyo alaabta kale aan shiilayo waa saliid olive, waa saliid olive-teenii iyadana mulqaacadaas. Marka intaasaa ugu wala dareen, saa isku wala dhex gasho, waxaan sameynayaa waan xidhayaa, waan iska dhiganayaa cabaar intaan ka sameynayo xawaashka. Xawaashidan maanta ku shaqaysanaynana waa sidan, waa barbarooniyadeennii oo kala duwan, waa basashii, waa tamaadkii, waa badhaadhihii, maasha allah. Markaas intaan hilibka intaan xawaashka jarjarayay, hilibku uu ii yaalay oo alaabtii aan ku laaqay ku qasay ayay isdhex gelayeen. Marka imika ahaan waxaan sameynayaa hilibkan horta shiilayaa. Markaan hilibka shiilo ayaan alaabta kalena aan ku soo dari doonaa. Ila socda asxaabe, sidaan u sameeyo. Aad baad u mahadsantihiin, waan iga mahad celinayaa saad iigu soo dhaweyseen, maasha allah asxaabey. Sidaa iyo si ka badan baan iga rajeynayaa. Subscribe-ka maasha allah inaan la iskala bakhaylin. Subscribe-ka like iyo share-ka waa dhankiina, comment-kayniga niga sugaa. Soo dhawaada walaalahayo. Hilibkan cabaar yara shiilay oo markuu yara casaado, siduu hodhow toole xawaashka markaan sameeyo aduu different way loo sameeyo way jirtaa, laakiinse maanta sidan aan aniga u samaysanaya. Waxaan ka samaysati leeyahay hilibkan oo xawaashkiisii isagii oo juice yar leh, si yaroo dhadhanaankiisu ay fiican tahay, amba juicy amba fooq saad u taqaan aduu, isagoo ka dhamaan. Hilibkii markaan ka guray saliidii iyo intii kusii jirta, haddana waxaan shiilanayaa badhaadhihii, because badhaadhuhu uu ka adag yahay xawaashida kale, siduu hodhow toole isaguna uu u fududaado. Horta isagaban shiili, alaabta kalena waan ka daba geyn doonaa insha allah. Isagii asxaabi saasuu igu soo baxay.
iminkana basashii baan ku darsaday maasha allah. basashii iyo bataadka badhaadhahan isagana isku shiili haddana. marka dhariyaha markaad aad cuntada marka horta haddii aad isku wala geysidna kolley wuxuunbuu soo bixi, laakiin ani ahaan waxaan aaminsanahay cuntada haddii kala gaargaar loo kala shiilo inay ka macaan tahay cuntada mar quraata meel lagu wala rido. laakiinse waxaa fikradda kala duwan oo dad qaarkiina waxay dhaheen cuntada nafaqadeedu waxayba ku jirtaa marka la isku wala daro. maasha allah. asxaabay inigu kee tihiin? ma ka kala shiilaa tihiin mise maxay hadane ka isku wala daraa tihiin? labaduba saaqiifyaan mem labaduba waxay nacam meel qura unbay wala si mida unbay wuxuu u wala noqonaysaa, laakiin aniga sidan baa yaa ila qurux badan oo ilana macaana. basashii iyo baraadhihii markay saa iskugu shiilmeen, barbarooniyadii oo kala duwan, akhtarkii casaankii dhammaantood oon soo yaryaraystay ayaan iminkana saa ugu darayaa siday maxay hadana iyaguna ay u shiilmaan. hilibkii uu ii shiilan yahay already meel baan dhigtay. xawaashkan baan isku wala shiilayaa. asxaabay siday kusoo baxdan waad arki doontiin. maasha allah. ilana soo tijaabiya haddaad waqti u heshiin. waana 10kii u dambeysay oo maxay hadana cashuura laysku soo duceeyay asxaabay. dhammaantiin waan nii soo wala ducaynayaa. cuduradan ilaahay hana garab mariyo, ilaahay hanaga badbaasho intuu hayo ee muslimna ilaahay ha ka guud qaado, ha caafimaadiyo. waxaas waa toontii weeyaan. waa toontii baan dusha kaga darsaday ilaa 3 xal. aduu intaad jeceshihiid ayaad ku darsan kartaa 3, 4, 5 ilaa intaad jeceshihiid toonta ayaad ku darsan kartaa. toontii markaan saa u dhex gashanay isagana maasha allah. weli alaabta nuuma dhadhawaa noo shiilmayaan maasha allah. nimcad. xawaashku waxa uu fiican yahay. waxaa laga helaa wax badan. tamaadkii amba yaanyo amba tamaad ninba sida ugu kasa maasha allah. marka intaa xawaashka saa iskugu wala geysatid ay isku wala shiilmaan maasha allah waan yara daboolan siday iskugu wala maxay hadane si fiican isku dhex galaan. waa kamsarti weeyaan waxaan iminka ku darayo. kamsartii aan soo jarjartay ma radqin, laakiin iyadii aan soo jarjaray baan ku darayaa. markaasaad iyadna kamsartana aad ba u carfisaa dhariyaha maasha allah. iyadiyo toontaba lagama maarmi karo marka dhari la karinayo carfiskii maasha allah. toontiyadna taabeen aad u fiican. saasay iskugu wala daray. waxaan samaysanayaa iminkana milixdii iyo alaabtii baan usoo diyaarinayaa aan ku wala darayay dhadhanaankii. waa maajigeeni weeyaan. xabad maajigaan ku daray, milixdii waan ku darsaday maasha allah. xawaashka carfiska ka baxaya maasha allah. udgoonka iyo carfiska yaa waa la isku arkay asxaabay maasha allah. waxaan samaysanayaa juusigii sidaan nii sheegayay. waa biyo yaro qandaca. biyahay waxaan ku darayaa maxay hadanay waa soya sauce-kii weeyaan waxaan ku darayo. soya sauce baan ku daray. waxaan kaloon ku daray waa warangadii weeyaan. warangada markaan saa ugu daro waan isku laaqayaa maasha allah. waxaan ka samaysanayaa juicy inay noqotaan rabaa. waxaan ka samaysanayaa waxaan ku darsan doonaa dheriga. alaabtii aan isku wala daray baan iyadna dusha kaga darsan doonaa. maasha allah. saas markaad isugu wala darsay isugu laaqday isku dhex gasho meelaad dhigan. sidaad maxay hadane hodhow talaban yaan ugu dhex daray ay juice yaroo fiican ay u samaysay. iminka waa qalayl weeyaan. way shiilmayaan. markaas hodhow talasaad bariiska aad ugu cuni kartid waa inay yeelataa fuuq yar, waa inay yeelataa amba juice sidaad u taqaanid sidaad jeceshiidba.
waa inay yeelataa. saas markaad u laaqdid hilibkii oo shiishay baa dusha kaga soo dartay uu duban yahay hilibkii maasha Allah. Alaabtii kale way isku wala shiilmeen. Waxa loo baahan yahay oo kaliya waa inay juice yeelato aad bariis ku cuni kartid. marka juicekiina asxaabood la aragteen oo anigii soo maxay qastay isaga juicekii baan dusha kaga darayaa imika. markaasaan dusha kaga darayaa waa warangadii biyihii soya sauce-kii saa markaan iskugu wala daro intay isdhexgalayaan. haddii aad aragtid inay sidaa daray kaaga yara tahay waad iskaga beersan kartaa sidaad jeceshid aad usii juice kugu noqoto. warangadu waxay samaysaa qurux bay ka dhigtaa markaad ku dartid isyaroo juice yaroo jiidanaya ka dhigtaa cuntada. saad arkaysiin bay kusoo baxday maasha Allah. hilibkii waa kana bariiskii vegetable baan ku dhex kariyey waa bariis cad weeyaan. asxaabi horena waan ila soo sharing garay bariiska saan u sameeyo dhowrka nooc ee cadaanka uga samaysto. hilibkii cuntadii maasha Allah ma adaaba sheegi karaba. salaadkii waa cunto waafiya weeyaan maasha Allah. bariiskii waa kaas quruxda isku soo baxay isaguna markaa vegetable ku daray. waa kan hilibkiina suqaarna ma aha istaagna ma aha maasha Allah. labada dhexdhexaad kuga juice sidaas juice u noqotay maasha Allah nimcad. si fiican waa loo cuni karayaa markan oo way maxay hadanay juice markaa yeesho bariiska buu yaa si fiican ugu cuni kartaa.